الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل وعنا وناكسن داوديال كنا سودواده warka maalin wanaagsan oo idinkaga imaanaya muuqaal baahiyaha Soomaaliya xarunta Saddexe magaalada Muqdisho. Qodobada aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa hambaliyo ku aadan doorashada madaxweynaha Somaliland waxa uu diray madaxweynaha cusub ee Somaliland. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa u hambaliyay madaxweynaha la doortay ee Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi. madaxweynaha ayaa shacabka deegaanada Somaliland xisbiyada hay'adaha amniga iyo madaxda u tartamaysa jagada madaxweynenimada Somaliland wuxuu ku amaanay sida nabadda ah oo ay doorashooyinka Somaliland u dhaceen kuwaas oo sumcad sharaf iyo karaamo u soo hoyay guud ahaan shacabka Soomaaliyeed. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa yiri waxaan u mahadcelinayaa dhammaan xisbiyada iyo musharaxiinta u tartamaya jagada madaxtinimada Somaliland sida dimuqraadiyadda ahayd oo ay u tartameen, waxaana si dhow ula socday hanaanka diiwaangelinta ololaha doorashada iyo codbixinta oo dhammaantood ay ka muuqatay ilbaxnimo iyo isu dulqaadasho siyaasadeed. madaxweynaha la doortay mudane Muuse Biixi Cabdi waxaan u ballan qaadayaa inaan kala shaqeeyo dardargelinta wadahadaladii u dhaxeeyay dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Somaliland si aan u soo celino kalsoonidii shacabka, ayuu yiri madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo.